degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan oo ah degmada saddexaad ee ugu weyn gobolka waxaa al-shabaab lagala wareegay 12 Juulaay sanadkii 2014 balse degmada Jalalaqsi waxaa si weyn u saameeyay dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka muddadii 25 sano ahayd waxaana burburay guud ahaan xarumihii muhiimka ahaa sida isbitaalka guud ee degmada magaalada Jalalaqsi waxaa ku yaal isbitaal weyn oo loogu magac daray degmada waxaana isbitaalkaasi Jalalaqsi la dhisay sanadku markuu ahaa 1984 xilligaasi oo wax xarun caafimaad aysan ka jirin degmada ha yeeshee isbitaalka Jalalaqsi waxaa saameeyay burburkii dalka oo waxa dhammaan lagala baxay albaabada iyo daaqadaha isbitaalka sida uu telefishinka Universal u sheegay agaasimaha guud ee isbitaalka degmada Jalalaqsi isbitaalkan siisa waxa dhisay group leeyahay Italian Medical Team sanadkii 1984 ay isbitaalkan ugu deeqeen degmada Jalalaqsi kadib waxa dhacday burburkii dawladii Maxamed Siyaad Barre waxa dhacday in wadanka lagu kala cararay lagu kala tagay burburkii Soomaaliya gaaray ayuu qayb ka ahaa waxa dhacday isbitaalka in la balqaystay albaabadiisii wixiisii waxay ahayn Mercury iyo maxaan ku sheegay macdani ahaayeen wixiisii dhan waa lagu kala tagay sidii maxanaha oo Soomaaliya ula qabay arintaas mid gaar u ama ahayn isbitaal ahaan uma muuqdo oo waxaan ka raadkii oo isbitaal ahaan u yaalmooyay ma u qalanto in maanta oo bukaan lagu daayo ma u qalmo oo arkaysa burbur ka muuqdo inta hadda meesha ka taagan waxa suurta galiyay ganacsatada degmada Jalalaqsi ay suurta galisay iyo maamulka degmada Jalalaqsi isbitaalka guud ee degmada marka maqasho waxa kugu soo dhacaya adeeg caafimaad oo bilaash ah iyo in bukaanada imaanaya isbitaalka la siiyo muddada ay joogaan sariir iyo dawo bilaash ah balse isbitaalka degmada Jalalaqsi waa uu ka duwan yahay isbitaalada kale maxaa yeelay bukaanka imaanaya isbitaalka waxa uu soo qaadanayaa gogasha uu ku seexan lahaa dawada uu isticmaalayo muddada uu joogo isbitaalka sida uu sheegay Xuseen Cabdi Wehliya oo isbitaalka ay kaga jiraan laba caruur oo dhalay isbitaalka burburadii hore isbitaal caalami ah oo ahaa jiray oo degmada Jalalaqsi ka caaman hadda maantay hadaad banaa jiifto iyo hadii aad asiga ku jirtaba waxba isma dhaamaan qol male qolalka albaabadii oo dhan wixii la soo maray waa la ogaa wax laga foofsay waa wada afduleelaan hal qol oo israacsan hal habeenba kuma hoyan mar banaanka baan lagu daaweynaa mar wax afduleelo waxa kuugu soo galay aadyaabay sidaan iska dhex joognay mar ma taqaanaa sariir oo laba taqaanaa tabal oo meelaha laga keenay ayaa dadka ma taqaanaa lagu caabinayay dadku marka waa taqaanaa qof kasta si walba ma taqaanaa kalsooni buuxda oo meesha lagu qabay mooga wax kale oo saas uma jirin Dr. Maxamed Xasan Barre oo ka mid ah dhaqaatiirta caafimaad ee ka howlgashay isbitaalka degmada Jalalaqsi waxa uu ku baaqay in laga wada qayb qaato sidii dib u dhis loogu sameyn lahaa isbitaalka maadaama uu yahay isbitaalka guud ee degmada Jalalaqsi isbitaalkan waxaan dheer lahay intii u jirnaxayso muslimiinta caalamka intii u jirnaxayso bini aadanimada guud waxaan dheer lahaa isbitaalka hal loo soo gurmado midda kale wax qalab ah oo yaalo oo lagu shaqeeyo aqoontii iyo farsamadii waan leenahay laakiin wax lagu shaqeeyo qalab ah ma yaalo isbitaalka Cabdi Weli Xuseen Tawakal telefishinka Universal magaalada Jalalaqsi